odayaasha waxgaradka cuqaasha dhalinyarada iyo haweenka gobolka Sool ayaa taageero ballaaran u muujiyay xubnaha cusub ee uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo ka soo jeeda gobolka Sool munaasabadan oo soo abaabulay xogayaha dawladda hoose degmada Laascaanood Cabdi Khayr Dirir ayaa lagu taageerayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaana dhammaan dadkii halkaasi ka hadlay hadaladooda isugu biyashubanayeen taageero ay u muujinayaan wasiirkani cusub ee uu dhawaan magacaabay madaxweynaha Soomaaliland waxaana hadaladoodii ka sida tan maanta ay taariikhdu tahay 16 bishii 8 2016 oo maalin talaado ah oo aanu joogno magaalada Laascaanood hoolka shirarka ee hotel Mustaqbal waxa halkan fadhiya si aad arki doontaan dad isugu jira uqaal odayaal aqoon-yahano xildhibaano golaha deegaanka dhalinyaro arintaas oo shirsan yihiin inay support gareeyaan ama taageeraan magacaabistii Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Yaasiin Faratoon oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo ah haddii aan ka hadlo dareenkayga ama dareenka dadka halka fadhiya aad iyo aad ayay u soo dhaweynayaan waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay ka sokow madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaan ee dalka ay wax ka tabanayeen haddana waxa la oran karayaa waa bilow fiican ayaa la oran karayaa waxaan rajaynayaa biidmillaahi kariim hawsha iyada ah ee bilaabatay ee madaxweynaha qaranku ku dhiirsaday iyo xubnaha la shaqeeya inay sii socon doonto tabashada beelaha ay qabeen iyadoo ay farabadnayd haddana lama oran karayo waxay ku qanacsan yihiin oo kaliya ma taqaanaa magacaabista wasaaradda miisaanka leh haddana waanu soo dhaweynaynaa waanu ku qanacsanahay waa taageersanahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ugu hambalyeynayna dadaalkan ballaaran ee ay wado anu ka dawlad hoos ahaan ama ka xogay ahaan waxaan aad iyo aad halkan uga salaamayaa wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha oo aanu in muddo wada shaqeynay ahaana wasiir wada shaqeyntiisa aad u wacnay imikana waxaan hadalka kaga baxayaa madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waad ku mahadsantahay isbeddelkan siyaasadeed ee dalka socda waanu kaanu ka filanay waa ka ballan qaaday waa ka kii adiga iyo xisbigaaga waa ballan qaadeen inaad ummadda waxa aad u hayso aad u qaybin doonto oo si dhax ugu qaybin doonto waana cadaaladii lagu yaqaanay waa tii aad ku suntanayd imikana waxaan ku leenahay madaxweyne talaabooyinka geesnimada aad qaadaso ee xukuumadda aanu ka tirsanahay ay qaadaso shacabkuna waa ku qanacsan yahay waana soo dhaweynaa qaraadka lala soo rafanayay ee laga soo shaqeynayay raggii doonayay maanta keeni lahaa guusha weyn ee ku guulaysan lahaa kow waxa weeye Faratoon ninka la yiraahdo waxa weeye in Xaaji Maxamuud Xiir Yaasiin waa nin la yaqaano oo macruuf ka ah waxaan kaloo madaxweyne ku sheegaynaa annaga oo gaar ahaan koola hadlayna waxaan u malaynayaa waxaa jiray hadal uu yiri gaariye الله يرحم الراحمين أيام باكري دون تبوير ضد كسول يعوض لآذن ولا إلاوي إفتين دير اللي ورادين إلى سكود اللي رادين إفتين دير اللي ورادين يا كري دون تبوير مركا وحن قياسي أرنتي ومباد قرطي مدحوينه وحن نهاري ميرا كسر سريو حلكة مدحوينه إيا كحيجينك إيا وحي اللمضة مرحدي وقوي هاي mar haddii laan yahay waxaanu rabnaa raggii qaban lahaa oo uu ka mid yahay ninkaasi boqolaan nin aad ogtahay Dr. Cali Khalifa isna halkan soo fadhiya waqooyi waa la isugu imaanayaa Soomaaliland waqooyi baynu raadinaynaa ismadii waa imaanayaan dadkii waa soo wada gelaya u diyaar gareeyo intaas oo sanadood aad la soo rafanayseen waanu idin siinaynaa idinna hambaliyadiina waxa weeye haddaba dabada annaga iska raacinayna aqoonsigeedii kuraasada xogaa yarde ma aragtay maqaadooda waxa yiraahdaan dabciyay caalamiin xafladan qiimaha badan waxa loo qabtay taageero horta marka ugu horeysa aan sheego xafladda wixii loo qabtay xafladan waxa loo qabtay taageero la taageerayo wasiirka arrimaha gudaha loo magacaabay Mr. Faratoon oo runtii waxa weeyaan markii la magacaabay ay beesha dhulbahante gabi ahaanba boqolkiiba boqol aad iyo aad loo soo dhaweeyay gabi ahaan waa wasiirkii koobaad ee Soomaaliland loo magacaabo oo beesha dhulbahante oo dhan isku raacday way
yaasiin xaaji maxamuud xiir halkan waxaa ku sirtan beeshii bahar same gobonnimadu waxay ku jirtaa inaadan dhulbahante keliya ku koobnaan ee ku koobnaato aqoontaada kartidaada waayo aragnimadaada inaad ku baahiso gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland oo Samiir Saciid Bile telefishinka madaxa bannaan ee bulsho laascaan